qasab ma ahan inaa mar walba qofka u sareeya ama qofka wax hogaamiye ahaatid balse waxaa ogaataa wax kasto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي سلامي إلهي وحان إذن كغرجين يا عمري دار عبادة دميستران يعرف مادن ملكستو الدنيا ذا كجوكتان كسو دوادا channel كسانفع ما انتو حانج على استنان إذن لو داغو قايبيات ير وكسابسان وجيغا وكولن ياشي حساسي انقصل هنا so just وحاوية wajiga ayaa kulan yeeshay balse inta idin guda galin waxa rabina idin la wadaago sideeda bini aadanka mar walba waxay moodaan waxa sareeyay inay wanaagsan yihiin balse waxa mar walba meesha ka baxdo ilowna qasab ma ahan inaa mar walba qofka u sareeya ama qofka wax hogaamiye ahaatid balse waxaa ogaataa wax kasto aad haysatiin ay micno gooni leeyihiin laga yaabo in hadda micno kuugu dhisneen laga yaabo inaad fahansaneen waxa ay yihiin laga yaabo inaad hadda u baahneen bas laga yaabo inaad u baahan tahay balse aad ogeyn sababta ugu baahan tahay soo marka waxa ku indhihi ayaa marka dacwo qabeen waxay ku dhaheen sunniyaha ama xirbaha sida u taqaanid ay dhaheen sunniyoy ama xirboy maxaad nooga sareysaa anaga ayaa ka qiimo badan anaga ayaa wax badan jirka u qabano anaga ayaa jirka wax tusno anaga ayaa quruxda iyo waxa foolxun u kala tusno anaga ayaa nagu akhristaan buugaagta kitaabada iyo wax walba maxaa adiga iiga sareysaa adna micno aad leedahayna iyo waxa qabatidba ay cadeen shaqada aad qabatid xiriboy ama sunniyoy maba naqaanay maxaad nooga sareysaa marka sanki ayaa maqlay ayaa wuxuu dhahay sanoy indhoy adiga naftaada anaa ka qiimo badan balse waxa muhiim ah oo kugu raacsanahay xiribaha ama sunnaha waxay anaga oo dhan nooga sareeyaan waa fahmi la'ahay waxay jirku u qabtaana ma garanayo waayo aniga san hadaa ahay aniga la'aantay jirko dhan maba noolaadeenba neefta ayaan sabab ka geeyaa oo jirko dhan ku faafiyaa neefta ugu muhiimsan ee lagu noolaado ani ayaa gudbiyo ani soo maran kow sanki ayaa saa dhahay afki ayaa maqlay doodii ka dhaxaysay maadaama kulanka uu ka dhaxeeyay wajigo dhan ayaa kulmay marka doodii oo dhaxmartay wajiga iyo sanka iyo indhaha ayaa afki maqlay afki ayaa wuxuu dhahay dhamaantiinba aniba qiimo weyn ayaa ku fadhiyaa jirkana wax weyn ayaa u qabtaa inkastoon idinku raacsanahay sababta ee nooga sareyso xiribaha ama sunniyaha amba wax weyn ayaa jirka u qabtaa aniga la'aantay afka hadaan cunto la soo marinin lama noolaadeen biyo hadaan afka la soo marinin lama noolaadeen aniga hadaanan hadlin dhibka idaawaca xanuunka iyo farxadda iyo qosolka aan dareemayo hadaan aniga soo gudbinin lama ogaadeen bini aadanka iyo dareenkiisa marka sidaas darteed amba qiimo weyn ayaa leeyahay dhamaantiin waa idinka hooseeya maxaa dhacay balse waxa muhiim ah maxay sunniyaha nooga sareeyaan kadib dhagihii ayaa ayakana ra'yigooda soo gudbisaday dhagihii ayaa waxaa dhaheen annagaba maqalka ayaan gudbinaa waxay indhaha arki karin ayaan gaarnaa waxay gacmaha gaari karin ayaan gaarnaa wuxuu sanka urin karin ayaan keenaa marka annaga waxay ka wadaan dhagaha waxay leeyihiin adduunka geeskiisa kale dad joogo ayaan idin maqashiinaa dad adduunka kale meesha kale joogaan ayaan la xiriirtiin walaalihiin iyo ehelkiina iyo asxaabtiina iyo dad aad la shaqaysaanba aad adinkoo indhahana gaarin gacana ku taaban karin ayaan anaka idin fududeynaa balse saasay tahay waa idinku raacsanahay aniga meel dhexe ayaaba joogaaye dood weyn ma qabo balse waxaan la yaabanahay cadaalad darada ama sababta ay sunniyaha meesha u saaran yihiin inkastoo dhammaanteena u aragna cadaalad daro balse waxaa laga yaabaa inay jirto xigmad anaga kadib sunniyihii ama xirbihii sida u taqaanidba ayaa ayakana ra'yigooda dhiibtay sunniyihii ayaa ayakana waxay dhaheen waxaad dhahayseen oo dhan waan maqlay waana idinku raacsanahay anigaba nafteyda ma garanayo sababta aan idinkaga sareeyo ama shaqada aan u qabto jirka balse waxaan sameyn karnaa oo fiirin karnaa haddii meesha aan maanta joogo liiga dhaqaajiyo oo meel kale la igeeyo tusaale ahaan boosaska adin ku fadhisiin haddii ani la ifadhiisiyo adinkana boosaska aad ku fadhisaan aniga meesha ani ka taga idin keeno balaan fiirin oo aragno waayo amba waa idinku raacsanahay ra'yigiina ma garanayo ama ma aqaano meeshaan shaqada aan ka qabto ama sababta darajada weyn la ii siiyey
markaas way isku wada raaceen oo waxay dheen haye suniyoy meesha ka soo bood ee soo fariisa booski indhaha indhihiyo meeshii suniyaha taga markaas kulligood markay wada fiiriyeen eegeen waxay ogaadeen kadib waxay ogaadeen inay foolxumo tahay oo wajigiibu u ekaaday wax waalan oo la garan waaye haddana suniyihii waxay dhaheen tag meeshii sanka joogay sanow adna tag meeshii indhihii joogeen waaba ka dar oo dibi dhal afkiyow haddana ku bedelmo booskii sankiyow adna maxay ahayd aad indhihiyow imaada meeshii afkii booskiisa markaasay la yaabeen waxay noqdeen wax aan la arki karin oo lala yaabo dhagihii yaalda hadinkana soo boodo booska oo ma aragtay imaada sanka markaasay dhaheen waxaan waa wax waali ah oo foolxumo badan oo la arki karin kadib waxay ogaadeen qiimaha ay indhaha sunyaha u hayaan wajiga oo ah quruxda iyo waxyaabo kale badan balse waxay ogaadeen booska ilaahay u doortay inuu mid walba xubinta ilaahay u doortay ay ku haboon tahay inay ku qurxan tahay kadib ayay bilaabeen inay iska raali geliyaan kadibna markay iska raali geliyaan ay ku mahad celiyaan ilaahay maxay xubintu u dhiibay meesha ay joogaan kadibna waxay ku faraxsanaayeen wax walba iyo waxay yihiin marka tusaalaha kulanka wajiga aan idinkula wadaagay waxay tahay nolosheena sideena bini'aadan markaan ahay laga yaabo maanta waxa haysatid aadan ogeyn qiimaha ay leeyihiin ama sababta ay kugu fadhiyaan ama waxa ay kugu qabtaan inay waxba weyn ku ahayn laga yaabo inay wax weyn kugu fadhiyaan oo maalinta ay ka tagaan ama aad weysid waxaas aad ogaatid qiimaha iyo muhiimadda ee naftaada iyo noloshaada u leeyihiin marka sidaas darteed weligaa wax walba oo haysatid ku kalsoonow ilaahayna ugu mahad celi waayo aqoon badan oo waxaa jirta anaga inaga qarsan oo ilaahay un og yahay sidaas darteed mahad celinta waa muhiim waad mahadsantihiin walaalayaalo sheekadaas ama qisadaas wajiga kulankiisa ku saabsaneed halkaas ayay ku dhan tahay insha allah marka waa inoo kulan dambe oo xiiso leh haddii eebaha wada la idmo sheekooyin kale ama maxay ahayto dhiirigelin kaleeto oo ku saabsan ayaan idiin soo diyaarin doonaa haddii ilaahay idmo marka fadlan adigoo aad iyo aad u mahadsan subscribe saar like saar ra'yigaaga hoos igula wadaag iyo waxay kula tahay dadkana la sii wadaag adigoo aad u mahadsan waa inoo kulan dambe oo xiiso leh haddii eebaha wada la idmo waa sidaas iyo nabadgelyo amaana allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu